بسم الله الرحمن الرحيم نبض وضيع الأمر كلي برنامج كني عشابات كدنيا والمرتوق على مستفع حسين حرسي دكتور مستفع حسين حرسي وأقسمها واحدة دير كان عسبيتل كهالجيسة أقسم واحد كسر برنامج عشابات كدنيا نوه وأنا كودين دون دكتور مصطفى الحالة الجديدة قيمتها المعاملة كنت عسبيتل كدمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله هدينا كاجا ورم حالة الجديدة عسبيتل الجديدة هرجيسة قيمتها دمر runtii waxa la dhisay koob iyo toddobaatankii isbitaalka shan iyo labaatankii June baa la dhisay iska wax qabso lagu dhisay isbitaalka dawladdii militariga ahayd xilliga ay jirtay waa kii ay dheeraan dagaal la sokeeyay kadib 29kii dabayaaqadoodii baan anagu ku shaqeynay awgeeshinahan aan furay qaybta maskaxda oo hadda ilaa 29kii wixii ka dambeeyay ilaa maanta si toos u shaqeysay عدة حرير كنا اللي وحويان صوماليا جيبوتي إثيوبيا يو ضمن الدبت ضدك لقى كمان رنتي ده يقول حمصنايا أي حرير استفال كلا سمية هذا النقطة بيشين هذا النقطة بيشين استفال كوع وش غير سنة صوت لبعض الأشياء حظ يسند استفال كوع عقاب بكانة عصب يعني هو استفال كله كين ما أنت أربعة أنا بكانة أجني لفتود يمديكوا أجني هذا وفلو أبدية أنا وصل من بكرنا صدق العشاء السبت ذا هي الثلاثة ذا هي الخميس على وش غياب كان كذا سيميريس تودا نظافة تودا وده واحد شيء غير بدون ولا برايو سيدا حتى الله عضيده سيدا سوريا الله استعماله سيدا أي برشلونة مرة يكون نقدان أي يقولون نقدان الحياة ورنتي تذكي كونسل ريسك هاوي تشوجا وسيكولوجيست كمان لا تشوجا وسوشيال ورك ريسك كمان لا تشوجا runtii isbitaalku saas ayuu shaqeeyaa waa doctor waxa ku diin doona imisa bukaan amba dadka disable-ka maskaxda waa imisa tiradooda ragga dumar runtii in waxaan badinay outpatient runtii waxaan dadka baraynaa in qofku uu ku daweyn karo ilmihiisa ama qofka ehelka uu yahay guriga gudihiisa si aanay u isticmaalin meel lagu xidho isbitaalku horta sida tayba waa ka hor silsilada وقف إلا هذا ما دركت سلسلة كحرة مجرى ورجوجني سلسلة دون ده وحنو الله بعض يدنا سيدا درادي لو كفايدة سنة إن آن لا حيرين بكرنا ده أيه وحنو برا بقول يكونتم أهلك هي بقول يكونتم أهلك والله بقول اسكتك سيدي سلسلة ده لو قد برشك لا تذكر وحده يقول يا وستر كجرا تصل لو بدل يدو waayo dadku wuxuu ku haynayaa silsilad laakiin hadii dawo la siiyo bukaanku waxa lagu haynayaa dawada uu ku caafimaadaya uu ku bogsanayaa bulshadii ku dhex jiray imika bukaanka lagu ku jira waxa weeye 68 raga iyo 3 dumar 3 dumar iyo 8 iyo 6 raga 3 dumar runtii hadii aan kaaga waramo markaan kulay aad bishigan badino dodarka sabab maalin walba waxay maada daily salaasag ahad kasta iyo isniin kasta waxay maada todoba qof oo neegna oo cusub bishii markaad ku dhufato dadkan laakiin waxa ay qanaan xanuunka maskaxda ku dhaca in dharka la tuuro laakiin xanuunadu aad u fara badan yihiin qaybo fara badan bay leeyihiin adoo dharkaaga sita oo xaragoonaya oo shaqaysanaya haddana xanuunkan aad la noolaa kartaa shaqaysan karaysa bulshadiina aad ku dhex jiri karaysa دكتور waxa ku diin dumar labaad dad badan oo maskaxda wax ka qaba oo suuqa jooga jiray oo xaggan maadaayeen in badan dalka jooga dadka midika ay isku taxaluujiyeen soo qabataan oo dar yeeshaan se familiyadooda kana saddex siyaabo loo soo qabtaa ama saddex siyaabo isbitaalka u soo galaan dadkaas dad aan soo shaqo bulshadii dhibaato ku haya oo dagaalamaya oo gobadhida jijibinaya biliska keena dadka kale ee dayacan ee meelaha magaalooyinka ka baxsan yaalada bilayska ayaguna keena oo runtii bilayska aad iyo aad halkan uga mahadnaqayo oo culays fara badan saara sidii ay u ilaalin lahaayeen dadka maskaxda ka buka oo runtii markay arkaanba immediately isbitaalka u keena waxaa kaloo ka soo galaan waa dad ehelkoodu ay keenaan saddex waa dad ay shaqaalaha iyagu ku soo arkaan meelaha iyagoo dayacan kadibna ay keenaan laakiin dhibaatada loogu wuxuu damaanadda qofka abajti qof dayacan bad soo qabatay oo shaqaaluhu ku keeneen
waxa laga yaabaa 2 wiil kadib reerkooda ogaanayeen isbitaal ku jiro maxaad soo qabatay meesha shaqaale ku qabsanayeen yaa keenay way dhacday isbitaalka dhowr goor way ka dhacday hore marka runtii dadkana anigoo ka faa'iideysanay media waxaan leeyahay qofka haddii soo dayacaan la arko oo shaqaaluhu ama bileysku ay keenaan halkii loogu talagalay in lagu daweeyo dhibaataha u arkino waa la daweynayaa caafimaadkiisana ilaahay wuu soo celinaya دكتور waxaan ku weydiin doonaa mar labaad su'aalka waxa jaani way ku jiraan oo maskaxda wax ka qaba oo hay'adaha ma ka soo qabteen isbitaalka ajaan may ajaan ma laakiin marka ajaan la leedahay waxaad u jeedaa Soomaaliland wax ka baxsan ha way jiraan oo ragii galka fadhiyada Soomaaliya Itoobiya laakiin wax Soomaaliland la way badan yihiin waxaan haynaa ilaa 7 qof oo ilaa imka eelku xitaana garanay oo iyagu oo xanuunsanaya la keenay runtii ka imkaan soo marayno kale lugtiga gacanta ku go'ayeen soo fiiyo oo magaalada ka saddex maray gaar jiray kadibna wadiga arkay labada gacanta iyo lugta taltaaliga ay go'ayeen markii la daweeyay ee uu soo dhamaaday qalliinkii iyo daaweyntiisii ayuu develop gareeyay xanuunka maskaxda kadibna waxa loo soo gudbiyay qaybta sidii baan u haynaa welina aan u laanay familkiisi hatta xaqiisi wuxuu yaala lagu leeyahay xirlaanta hayso oo xagga ay dawladda ayaa haysan xaqiisi cidii wax yeelaysayna waa la garanayaa oo niman agta ka qaaday ma in sidii uu wax u noqdayba way ka wareeyeen laakiin cidii ehelkiisa hay ee xaqiisi lahayd ayaan ilaa imka lahayn mar walba oo gelinaa website-da iyo meelaha ay ku xiriiraan bulshadu runtii ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay soo dhaweeyo familkiisi runtii dee كما علي وقتك قالي نو قلت انا ورئيس نقص دكتور waxaan ku weydiin doonaa dadka ku xiran amba aad ku dareeshaan isbitaalka qaybta dhimarka xaaladooda aad u fiicanta markay baxaan maxaa sababa in saddex wiil dawladda xaaladdu sidii noqoto runtii waad aragtaa xaaladooda wada degan wadadooda bogsaday markay baxaan albaabka dee waxa yaala jaadkii dhibaatada haysata dadka waxa weeye jaadkii markuu si baxayo waxa uu siinaa talo oo qoladii psychologist-ka ahayd ama social worker-ka ayaa xasiisiyaan talooyin si markii hore uu ka soo xanuunsaday bada uu uga fogaado oo qaar dhexda waxa lagu daraa tabliiqiinta oo masaajidada ku xiran yihiin ninka dee badbaadi waayay dib u soo noqda waa ninka halkii ka sii wadaatee balwadii uu lahaa waayo ta kale xashadii magaalada maanta gidaar walba taada oo iyadoo buda abad arkaysa runtii diblisku maalin iyo habeen way qabanayaan haddana wixii weligu waa dee socdaan dhalinyarada madaxa badan dhalinyarada kusoo xanuunsanaysa jaadka iyo cashashada iminka xanuunadaadi dhalinyarada waxaad arkaysaa isagoo shaqaysanaya ama wax baranaya baashaasu isticmaalaya dab ka baxaya khadki ka wallahi dhibaatada baashaasi nagu soo kordhisay oo jaadkeeduna naga sii darmeen ayaduna nagu soo kordhisay doctor waxaad ka warbixisaa sanadihii ugu dambeeyey marka 5 sano marka kule sanadihii ugu dambeeyey 10 sano ugu dambeeyey xanuunada dhimarka kor buu kacay soos buu kacay kor buu lagu sii kacay waxana sababay wali baan ku sababay balwadan waan berigii hore si loo isticmaali jiray loo isticmaalay oo lagu quraacanayo lagu qadaynayo lagu cashaynayo oo mid ka dambeeyay biyo raacis la cunayo qofkina dee uu gaajoonayo oo calooshiisii aan dee wax badan gelin oo appetite-kii uu ka xirmayo hurdadii oo yaraanaysa فكر فربنا شغالة أنا بحسن وجهت ورنتي عدة حمكن وبدنتنا وحوي أنت اللي جف يصير لها اللي يرد هاي ومض وحتر لها أما فاهم يقول وحتر لها دكتور المقطع هدي دراجن ده كان لقى كنترولو أنا حاولت السيدة بيجلسوا محل كتير هنقطع والله هو استبدل بدل ما يمر وحتى وحن كنت هالنين بالغات دي بلورد جيل أفر توكله قات كسوهريني مع قراء دي بيرك هاي سيرة هرجس لك كينه بلين دي بلورد يقول سيبر يهرب أفرت وضف ده وقت يرعوني كرو ومركب كوين كرو وقت يوصل كونه لكن لعبك يبقى شرطة سوق غير اللي على سوقه قاضته دور كذا كي كلامه كيسي ترى كيس كذا كتمه ترى تيجي بعث اللي هاتي لكن لا يرايو الحمد لله غيرانه طيب دكتور waxaan ku weydiinayaa mar labaad dadka halkan ku xanaanaysan bulshada maxay u jeedin lahayd marka suuq u baxaan sida loo dhaqmo okay waxaan runtii dhowr goor horena ka dhawaajin dadku markay xanuunsadaan ay dawoobaan xanuunkan maskaxdooda wuxuu la mid yahay xanuunada kale jismiga ku dhaca waxban qabaa xanuunada qaar inuu ka dhow yahay
kana dawo dhow yahay ummaddu ha ka dayso takoorka iyo caayada iyo dhibaatada waayo waxaad arkaysaa qof xanuunsanayay oo magaciisa maxamed cali cumar oo kale aad u taqaanay waxay u bixinayaan magac aad garanay meel ay ka keeneen ciyaal siday u shiidayaan ay magac ayaa wuxuu qofkii sii qaadaya xanuun kale deedna qofkiiba ahayn oo xanuunkii hore koogeen xanuun ka sii daran dhahayo ayaa lagu keenaya marka waxaan lahaa ka daaya takoorka iyo dhibta ku haysan dadka buka oo soo dhaweeya oo walaalnimo tusa oo ha noqdeen qof kula mid adag waayo qof karantiini ma jiro madaxweyne wasiir gudoomiye taajir nifaqiira cid allaale cid ka baxsan karaysa ama cid loo karo waa karantiini qofkaas xanuunsan maayo ma jiro qof waliba uu xanuunsan karaa xanuunku waxaan qof kasta ku dhici karaa cidna ehlu maaha waxa kale aad jirtadka adeegstaan kelmad cuquba ku dhacday reer hebelo wax cuquba la yiraahdo ma jirto ku dhacaysa waa xanuun maskaxiyan oo jirka ku dhaca ee maskaxda ku dhaca sida jismiga xanuunada kale ugu dhaca marka waxaan lahaa qofku inuu belief gareeyo xanuunkan ilaahay keeno ilaahayna uu qaado ilaahay xanuunka ku keeno 5 mil gudaheed ku ridi kara haddaad ka deen weydo caayada iyo xumaha iyo jijiidka iyo shiidka aad ku hayso buka marka dadka waaweyn ehelka waxaan lahaa in laga daayo oo ubadkooda lagu tarbiyeeyo si ay u soo dhaweyn lahayn dadka maskaxda ka buka oo uga deyn lahayn cadaadiska iyo dhibta ay ku hayaan dadka maskaxda ka buka doctor waxaan ku dinaha xiliyada wax lagu jira bishii Ramadan gudaheeda maalmihii ugu dambeeyay ma jiraan dad ama ganacsatada ama muwaadiniinta dalka u dhalatay ahaadaan ay caawiyo isbitaalka qaybta dhimirka Ramadaanada ama iida way jiraan iyadoo iidahayna way caawiyaan xiliyada iid soo dhawdayna way ka qayb qaataan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa cid allaale iyo cidii dadka muslimiinta ee awalba caawin jiray awalba la ciidin jiray dadka kale ee magaalada joogay caafimaadka qaba inay maanta sidii ay hore uga ciidin jireen maanta ay la ciidiyaan ugu dambeyntii waxaan ku weydiin doonaa doctor maxaad soo jeedin lahayd bulshada Soomaaliland waxaan soo jeedin lahaa ummadda jilicsan ee xanuunka maskaxda u haleelay sidii ay u ilaalin lahaayeen ama ay ula qaybsan lahayn xanuunka macnaheedu marka la ula qaybsan lahayn macnaheedu dhibta haysa inay tusaan la wadaagayaan oo walaalkii yahay kalgacal tusaan dadnimada aanay ka fogeynin ay ka daayaan wixii iyaga ku ahlidba way soo dhaweeyaan maqtalillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta aan soo dagaagay barnaamijkan cajaabadka dunida oo martiin uga hadlay Dr. Mustafa Xuseen Xirsi waad mahadsantahay waqtiga qaadan